casharkan waxaan kaga hadlaynaa aaladda loo yaqaano XH-W3001 oo ah temperature control thermostat. aaladdaas oo koontarosho kuleylka iyo qabowga aad u isticmaali karto inay koontarosho. casharkan waxaa idiin soo diyaariyay Somtronics. casharkan waa cashar layga soo codsaday, marka waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysataan hadduu ilaah yiraahdo. aaladda markaad gadato, nooca aad gadanayso waxayd ku xiran tahay meeshaa sida loo calaameeyo. markaad fiirsato ama aad fiiriso aaladda gadaasheeda aad fiiriso, waxaa arkaysaa 3 box ayaa arkaysaa, 3 sanduuq. sanduuqa ugu horeeya waxa uu kuu sheegaa aaladdaas waxa ay ku shaqayso. waxay ku shaqaysaa 12 volt, waxayna soo saari kartaa ilaa 120 watt. marka meesha ayaa la calaameynaya. haddii ay aaladdaas ku shaqaynayso 24 volt oo DC ah iyo powerka uu soo saari karna ilaa 240 tahay, halka ayaa la calaameynaya. haddii aad gadato mid AC ah oo 220 halka ayaa la calaameynaya, marka waxay qaadi kartaa 1500 oo watt. markii aad gadato midda DC-ga direct current ku shaqaynayso, ama 12 volt ha ahaato ama 24 volt ha ahaato, waxaad ku xiraysaa fiilada ugu horeysa, labada fiilo ugu horeeyo. midda madowga waxaad ku xiraysaa bateriga minuskiisa ayaad ku xiraysaa ama negativeka. midda guduudan oo balaaskana waxaad ku xiraysaa bateriga balaaskiisa ayaad ku xiraysaa. fiilada gudaha ku jirta oo ah ka kooban midda madow iyo midda jaalaha ah ama yellowga ah ama huruudda ah, waxaad ku xiraysaa balaaska, midda madowna waxaad ku xiraysaa minuska. marka hubso haddaad nal u isticmaalayso, nalkaas quwadiisa waa inay tahay bateriga quwadiisa. masalaba nal haddaad rabto inaad u isticmaasho bateri ah 12 volt, halka waa inuu nalkaas noqdaa quwadiisa 12 volt, uusanna ka badnayn 120 watt sida hore aan usoo sheegay. haddii aad isticmaalayso 24 volt bateri ah, make sure halkaa nalkaasna inuu yahay quwadiisa 24 volt, powerkiisana uusan ka badnayn 240 watts. marka fiilada u dambeysa waxaa ku xiran sensorkii ama geedkii cabiraya meeshaas qabowga ama kuleylka ka jiro. haddii aad isticmaasho mid ah 220 volt oo AC ah, alternate ah, guriga korontada aan u isticmaalno, fiilada ugu horeyso blaaga ah waa neutralka, waa midda groundka loo yaqaano ama negativeka ah. midda redka ah waa Lna waxay kuu sheegaysaa live ama waa midii dabka qaadaysay. marka midka redka waxaad ku xirtaa Lka ama liveka ama midda dabka qaado ayaa ku xiraysaa. midda madowna waxaa ku xiraysaa groundka waxa loo yaqaano ama neutralka waxa loo yaqaano. sidoo kale nalka midda jaalaha ah ama yellowga ah ama huruudda ah waxaa ku xiraysaa live, midda korontada ama dabka qaadaysay. midda madowna waxaa ku xiraysaa neutralka. marka waa inaad hubsataa nalka aad u isticmaalayso in quwadiisu ay tahay 220 volt oo yahay AC ah, quwadiisana aysan ka badnayn 1500 watt. marka aalad kasta oo halka aad ku xirayso oo aad rabto temperatureka inaad ku koontarosho, waa inaad hubsataa quwadeeda. sida hore usoo sheegana, sensorka wuxuu ku xirmayaa midda u dambeyso. haddii aan fiirino kambaniga specificationkiisa, waxa uu ku leeyahay housing material, macnaha waxa ay ka samaysan tahay waa plastic. temperatureka uu cabirayo waxay tahay -50 oo qabow ah ilaa wuxuu cabirayaa 110 celsius degrees ah. waxa uu ku shaqaynayaa kuleyl iyo qabow. cabirkiisa inta qalad uu noqon karo waa 0.2 celsius ah. ayagana waxay cabireen 0.1 celsius ayay cabireen. marka inputka uu qaadanayana wuxuu ku xiran yahay sensorka ku xiran oo ah NTC 10K, wuxuuna yahay 1 mitir ayay fiilada dhirirkeeda tahay, waana waterproof, macnaha biyaha waa dhex gelin kartaa oo waxba kama dhibayaan. sida hore usoo sheegay, powerka uu ku shaqaynaa waa 12 volt oo DC ah, 24 volt oo DC ah. masalaba maadaama uu ku shaqaynayo celsius, uu ku shaqaynayo systemkan, waxaa u baahan tahay haddaad damacdo inaad isticmaasho Fahrenheit. waxaa laga isticmaalaa North America oo kale iyo Canada iyo kale, wadamadaas ayaa laga isticmaalaa. marka sida u bedeli lahayd celsius, sida ugu bedeli lahayd Fahrenheit, waxaad isticmaalaysaa formula halkan ku qoran. Fahrenheit degrees waxaa lagu helaa
numberkii celsiuska halkaas intaad geliso bracketka oo aad ku dhufato 9 divided by 5 9 divided by 5 na waxay tahay 1.8 marka waxaa ku dartaa markaa xisaabta halkaa aad calculation aad ku samayso waxaad ku dartaa 32 tusaale ahaan waxaa lagu yiri temperatureki wuxuu cabiray aaladii waxay cabirtay 26 celsius ayay cabirtay marka u bedelaa lagu yiri Fahrenheit degrees ah marka celsiuska ayaan gelinaynaa 26dii waxaan ku dhufanaynaa 9 divided by 5 waxaan ku dari doonaa 32 inta gudaha markaan ka shaqeyno waxay noqonaysaa 46.8 ayay noqonaysaa oo lagu daray 32 marka labadaa isku dartana waxaad helaysaa 78.8 degrees of Fahrenheit ah marka sida ayaa loo bedelaa kan waa aaladii aan ka hadalnay aaladda waxa ay leedahay laba batan ayay leedahay mid ku tilmaamayo kor ee mid ku tilmaamayo hoos sida hore u soo sheegnana waa HW-3000-W3001 aaladda aad gadato waxay ku xiran tahay hadda meesha laga calaameeyo boxkaas haddii aad gadato midda 12 volt ku shaqeyso quwadeedana ay tahay 120 watt waxaa la calaamaynayaa boxkaas haddii aaladda ay ku shaqeynayso 24na waxaa la calaamaynayaa halkaas haddii ay 220 volt AC na ay ku shaqeynaysona halka ayaa la calaameynaya marka taa ay waxay ku xiran tahay hadba aaladda aad gadato sidaan hore u soo sheegnay wuxuu leeyahay laba batan midna wuxuu ku tilmaamayaa kor midna wuxuu ku tilmaamayaa hoos sida aad u jeedaan sidaan hore u soo sheegnay fiilooyinka labada fiilo oo ugu horeeyo oo u geyseeyo markii aaladda aad fiiriso midda madowga waxaa ku xiraysaa negative-ka midda redkana waxaa ku xiraysaa positive-ka waa markii aad isticmaalayso DC aad isticmaalayso ama 12 volt ama 24 volt AC haddaa isticmaalayso balaaga waxaad ku xiraysaa waxa loo yaqaan neutralka ama dhexdhexaadka midda guduudana waxaa ku xiraysaa waxa loo yaqaana live-ka midda dabka wado L-ka midda loo yaqaano ayaad ku xiraysaa marka make sure inaad ku xirto sidoo kale fiilada labada fiilo gudaha oo aad ku xirayso aaladda rabta inaad kontarosho aniga waxaan ku xiray LED nal ah ayaan ku xiray midda yellowga wuxuu ku xirmayaa pluska midda madowga ahna wuxuu ku xirmayaa negative-ka haddii AC aad isticmaalayso make sure waxaad ogaataa midda yellowga inay tahay midda dabka qaado oo live-ka ama loo yaqaano L-ka midda madowna inay tahay neutralka ama dhexdhexaadka ama groundka waxaan dhahno fiilada u dambeyso waxaa ku xirmayo sensorka ayaa ku xirmaya sensorkaasna waa waterproof waayo oo biyo waa dhex gelin kartaa oo waxba kama uu dhibayo haddii aad rabto in aad ka tirtirto haddii mar qof kaa horeeyo oo meesha uu program gareeyey geedka waxaa riixaysaa labada batan ayaa hal mar isla riixaysaa 3 second waa sugaysaa marka waxaa soo baxayo calaamadda 8 iyo 8 iyo 8 ayaa soo baxaya haddii 8 iyo 8 8 kuu soo bixi waayo macnaha waxay tahay sensorka waa halaysan yahay marka waxaa u baahan tahay aaladdaas inaad iska turto ama inaad samaysid marka la socotaas markaad riixdo labada batan waa inuu akhriyaa 8 wixii qofkii kaa horeeya oo program gareeyana meesha waa uu ka tirtirmaya sidaan hore usoo sheegay haddaad rabto systemka inaad ka bilowdo meel cusub aad rabto inaad ka bilowdo oo aad tirtirto wixii ku jira ama qofkii kaa horeeya uu program gareeyo waxaad riixaysaa labada batan ayaa hal mar isla riixaysaa kan kore iyo kan hoose labadaba ma 3 second ayaa heenaysaa marka waxaa kuu soo baxaya 8 taana waxay kuu sheegaysaa sensorkaaga inuu fiican yahay labada aaro midda kor u jeedo ama falaarta kor u jeedo markuu aad rabto inaad program garayso waxa loo yaqaano cooling mode meesha qabowga ayaa loo isticmaalaa midda hoos u jeedana waxaa loo isticmaalaa inaad rabto inaad ka dhigto heating mode waxa la yiraahdo kuleelka marka midaana qabowga midaana kuleelka aarowyada waa kala jira midda kore iyo midda hoos u jeedo haddaad rabto inaad ogaato meesha uu ku program garaysan yahay hadda waxaad riixaysaa hoos
haddaad rabto inaad ogaado meesha hoose waxaad riixaysaa arrowga kore. taa wuxuu noo sheegayaa inuu ku program garaysan yahay meesha hoose ama qabowga 25. haddaan rabno inaan ogaano meesha uu ku program garaysan yahay kuleelkana waxaad riixaysaa arrowga midda falaarta hoos u jeedo. marka taana wuxuu noo sheegayaa wuxuu ku program garaysan yahay 40. marka aan ku celiyo arrowga kore waxay kuu sheegaysaa qabowga meesha uu ku program garaysan yahay, taana waa 25. hal mar ayaa riixaysaa. tan kalena hoos waxay kuu sheegaysaa kuleelka meesha uu ku program garaysan yahay, hal mar ayaad riixaysaa. taana waxay ku sheegaysaa 40. sida hadda aad u jeedaan markaan fiirino meesha ugu hooseyso waa 25, meesha korena waa 40. waxaan rabnaa tusaale ahaan aan soo qaadano. waxaana la yiri system oo ukumo ay ku jiraan ama egg hatching incubator, meel ukumo ay ku jiraan ayaan waxaan rabnaa in aan ku program garino systemkan in marka meeshaas gudaheeda qabowgeeda ama kuleelkeeda uu gaaro 37.5 degree markuu gaaro in uu heatka daarmo ama nalka uu daarmo. markii uu kuleelka uu gaaro 40.5 degrees uu gaarana in kuleelka uu damo ayaana la yiri. sidaa la socotaana shimbiraha ama eggska temperatureka ugu fiican ay ku hatch garayn karaan ama ku dhalan karaan waa inaad ku kiib garaysaa meesha ay ku jirto ukunta 37.5 degree oo celsius ah, waa best temperature waaye. markii ay dhaafto 40.5 degrees kor u dhaaftana shimbiraha waxaa dilaya kuleelka meesha ku jiro, marka waa dhiman karaan ama waxaa dhaawaca gaari karo. marka labadaas temperature ayaan rabnaa inaan ku program garayno. maadaama hadda markaan riixno meesha hoose uu ku program garaysan yahay 25, markaan kor aadno nalka wuu daarmaya. marka ugu horeyso aad program garaynayso nalka waa uu daarmaya, marka waxba ha ka walwalin. marka haddaan rabo inaan meesha hoose aan ku program garayo 37.5 degree celsius inaan ku program garayo, meeshaasna waa cooling modeka. waxaan riixayaa arrowga up ayaan riixayaa, arrowga up oo kor ah oo kor ujeedo ayaan riixaya. waxaan haynayaa 3 seconds. markii nalkaas LCD-ga uu flash gareeyo macnaheeda waxay tahay waa program garayn karaa. marka waxaan rabaa inaan tago 37.5, arrowga ayaan riixayaa oo kor ii sheegayso ilaa aan ka gaaro 37.5. sidaa ujeedaana nalkii waa uu daarmay, marka waxba ha ka walwalina. 37.5 hadda koraan u dhaafay, hal maraan hoos usoo baxaya, waxaan joogaa 37.5. marka taana waa nambarka hoose oo qabowga. wixii intaa qabowga ka dambeeyo heatka wuu daarmaya. kuleelkana marka haddaan raba inaan program gareeyo 40.5 degrees ayaan raba inaan ku program gareeyo, marka waxaan riixayaa arrowga down. hadda wuxuu ku jiraa 40. marka haddaan hayo arrowga aan hayo meesha blink ayuu sameynaa. markuu blink sameeyo macnaheedu waxay tahay waa program garayn kartaa. marka kor ayaan waxan u dhaqaaqaya ilaa aan ka gaaro 40.5. markuu blinkiga uu joojiyo macnaheedu waxay tahay waa program garay. marka aan ku laabano meesha hoose uu qabowga oo laga rabo 37.5, waxaan riixayaa arrowga kore, wuxuuna ii sheegayaa meesha uu ku program garaysan yahay. tan kore haddaan rabo inaan ogaadana arrowga down ayaan riixayaa, taana wuxuu ii sheegayaa 47.5. marka waxaan ku program garaynay hoos 37.5, korna 40.5. halkan waxaan ku haystaa galaas biyo kulul ah iyo mid qabo si aan tusaalahan idin tuso sida uu u shaqaynayo. masalan maadaama aan ku program garaynay meesha hoose 37.5, meesha korena aan ku program garaynay 40.5, marka waa riixaya, waa hal mar riixaysa, waanu kuu sheegayaa. waxaan rabaa in heatka markii uu gaaro 40, kuleelka markuu gaaro 40.5, 40.5 markuu gaaro degree celsius, waxaan rabaa heatka meesha in uu ka damo. marka waxaan sameynayaa kuleelka ayaan gelinaya si aan u gaarsiiyo temperatureka 40.5. sidaa ujeedaan temperatureka kor ayuu u kacay ilaa uu ka gaaro 40.5na ma uu damayo. waa ujeedaan markuu 40.5 gaaray temperaturekii ama nalkii waa uu damay. haddana waxaan rabaa inaan gaarsiiyo 37.5 oo uu daarmo, qabowga uu daarmo.
sidaa ujeedaana temperatureki markii uu gaaray 37.5 uu ka hoos maray heatkii waa uu daarmay. marka waa ku celinayaa, wuxuu gaarayaa kuleelka meesha u koreyso wuxuu gaarayaa 40.5. marka nalka waa uu damayaa. qabowgana waxaan rabaa 37.5 inaan gaarsiiyo si nalkii uu u daarmo. sida ujeedaana waa uu gaaray. marka sidaa ayaa loo isticmaalaa. waxaa important ah nalkaas waxa uu daarmayaa markii qabowga uu gaaro 37.5. markii uu ka kormaro 40.5na geedka waa uu damaya oo wuxuu la shaqeeyaa nalkaas. tusaale ahaan haddii aan gaarsiiyo 40.5 haddaan gaarsiiyo waxaa dhacayso nalkaas in uu damo ayaa dhacayso. marka taana waa tusaale aan rabo inaad la socotaan sida ay u shaqayso aaladaas sida ay u shaqayso. marka uu gaaro 40.5 sidaa ujeedaan waa uu damay. waxuu nalka uu daarmaya markuu qabowga uu gaaro 37.5 sida ujeedaana waa uu daarmay. inta aad ku jirto temperaturekaas nalka waxa uu ku sheegaya in systemkii uu shaqaynayo. hadduu damo macnaheeda waxay tahay temperatureki aad gaarsiisay waa la dhaafay. temperatureka ku program garayso oo meesha sare ahayd waa uu dhaafay. marka intaa ayuu ku egyaa tusaalaheena. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen.